ciidamada ammaanka ee dalka ayaa shalay sunta dadka ka ilmeysiisa ku kala eriyay dhalinyaro iyagoo dhagaxaan adeegsanaya isku dayay inay carqaladeeyaan isku soo bax siyaasadeed uu madaxweyne ku-xigeenka wadanka William Ruto ku qabanayay fagaaraha Jacaranda ee deegaanka Embakasi ee magaalada Nairobi. inkastoo munaasabadaasi ay sii socotay, haddana William Ruto ayaa arintaasi ku eedeeyay madaxa xisbiga ODM Raila Odinga. Ruto ayaa sheegay in aan marnaba laga hor istaagi karin inuu Kenyaanka meel walba oo ay ku nool yihiin ka dhaadhiciyo qorshihiisa siyaasadeed. Dhalinyarada ayuu uga digay in loo adeegsado rabshadaha gaar ahaan xilligani oo la isku diyaarinaya doorashada guud ee bisha 8 ee sanadkan. waxa uu dhanka kale Mr. Odinga ka dalbaday inuu cadeeyo sida ay uga go'an tahay inuu aqbalo natiijada doorashada guud ee sanadkan haddii loolanka looga adkaado. Raila ayaa horey u sheegay in haddii uunan si cadaalad ah uga soo bixin doorashada uusan muran gelin doonin natiijada.